السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وادin salaamay meel walba aad joogtaan waqti walba aad ku jirtaan waxaa ilaahay idinkaga rajaynayaa maalin wanaagsan ama haween wanaagsan ama waqti wanaagsan asagoo isku duuban maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago sida siyaabaha kala duwan ee dadka bini'aadanka wax u bartaan siiba caruurta si aan videogii hore idinkaga ballan qaaday dhowr qof adinka ka mid ah ii soo dirteen inaad ogaataan ilmaha sida kala duwan ee wax u kala bartaan badanaa maxay ahayto nasiib daro waxaa dhacdo in ilmaha badanaa aan ugu yeerno markay wax baran waayaan maxay ahayto waa damiin waa dabaal maxay ahayto waa doqon waa nacas waxba ma barto waxaas waxaa laga yaabaa ilmaha inuu qaladkooda ahayn magacyadaas ugu yeereeno qaladka uu yahay anaga ama macallin noqono ama waarida ahaano oon fahansanayn ilmahan qaabka ay wax u bartaan sababtoo ah haddii caruur dhowr ah meel isku keentid hal qaab un wax u baraysid qalin iyo buug soo qabo waxaan dhaho qor waxaan dhaho aqri waxaan dhaho saa u fahmo sidaan kuu fahansiiye u fahan ma shaqaynayso because dadka isku mid ma aha ilaahayna isku si uma abuurin isku fakarna ma ahan so badanaa markii cilmi baaris lagu sameeyay waxaa lasoo ogaaday ilaa 3 nuuc inuu qofka bini'aadanka si uu wax u barto siiba caruurta 3daas nuuc oo ah mid maqal ah oo inay wax maqlaan way caruurtaas so maqalkaas hadduu ilmaha meel shabuuq badan ka jiro macnaheedu waxay tahay inuu maxay ilmaha si fiican wax u baranaynin because meesha haddii arday badan joogaan oo caalashan dugsi oo kale oo hal mar la wada akhrinayo dan ilmaha way ku adkaanaysaa inuu dhaqso wax fahmo waqti badan ay ku qaadanaysaa laakiin macallinka maxaa laga doonayaa ama waaridka inay meel gooni fariisiyaan wax yar meel xoogaa adi isku dayaan intii awoodooda ah ilmahaas dhahan waxa soo xifdi waayo ilmaha wuxuu ku shaqeeyaa maqal wax inuu si fiican u maqlo waa muhiim u tahay midda labaad waxa weeye ilmaha qaar waxay wax ku bartaan aragti inay wax arkaan so ilmahaas u baahan inay wax arkaan hadduu fadhiyo meel dhexe ama meesha u dambeyso taas macnaheeda waxaa weeye inay asna ama iyada ku adkaanayso inay wax fahmaan ee bartaan markaas kadibna ay waqti badan ku qaadato inuu wixii fahmo ama barto midda kaleeto waxaa weeye ilma oo jecel inay wax ku bartaan taabasho ama sameyn waa inay waxaas taabtaan ama sameeyaan marka waxaa lagaaga baahan yahay in maxay ahayto kii hore I think I'm not sure in maxay ahayto oo dadka isku mid maaha macallimiinta qaar waxay sameeyaan anywhere ilmaha fariisiyaan mid ilmaha aragtida ku shaqeeyo oo kaleeto laakiin mar walba waxa muhiim ah oo qasab ah ilmahaas inaa hore soo fariisisid sababtoo ah haddii kale fursad ma u helayaan ee wixii arkaan taasi macnaheedu maaha ilmaha hadduu wax oo ku barto inuu arko it doesn't mean inuu ilmaha indhaha xanuunayo ama muraayad ama ookiyaal u baahan yahay ma ahan it's just sidaas unba waay siday wax u bartaan so waxaa lagaaga baahan inaa horey keentid mar walbo ardayda fariisinaysid ardayda kusoo xigta adig inay ka mid noqdaan midda saddexaad waxaa weeye sida haddaa idin mention gareeyay inay ilmo jecel inay waxa taabtaan ama sameeyaan waxa marka ilmaha taabtaan ama sameeyaan qaabkaasay wax u bartaan so waa inay sameeyaan wax walbo ama taabtaan so waxaa lagaaga baahan yahay inaad u samaysid hab oo waxa aad baraysid ay ku taaban karaan ama ayagoo taagan ama dhaqdhaqaaqayo ay samayn karaan habkaas waa hab u baahan inaad ka fakartid ama abuurtid haddii aad u baahan tahay inaad ogaatidna fadlan email ii soo dir anaa kuu soo dirayo qaabab badan oo ii shaqeeya aniga galaaskayga aan u isticmaalo marka ila soo socodsii I'm more than happy to share insha Allah marka sidee lagu ogaadaa in ilmahaas wuxuu yahay midkuu yahay waxaa jira sidoo kale testyaal la qaado oo yaryar oo fudfudud insha Allah testyaashaasna waa la soo wadaagi doonaa haddii eebaha awoodda la idmo qofkii daneynayo si gooni emailka ha iigu soo diro dan I'm more than happy to share haddaa rabtid inaad ilmahaaga gooni ahaan u ogaatid ama haddii aad ilmo la shaqaysid oo rabtid inaad samaysid mid marka waxaa weeye sidee lagu ogaadaa su-aasha waxay sida lagu ogaada ilmaha badanaa oo ah maxay ahayto aragga ku shaqeeyo badanaa dhinacyada fiirfiiriyaan markii ma aragtay oo wax aad u akhrinaysid ama maxay ahayto wax u baraysid indhahooda dhinacyada aadaan badanaa waxay isticmaalaan gacmahoodana levelka wuxuu joogaa adi xabadka in la eg gacmahooda markay hadlayaan ama wax sameynayaan meeshaasay geeyaan codkooda badnaa wuu kacsan yahay codkooda waa cod dheer
ilmaha maqalka ku shaqeeyo badanaa ilmaha maqal ku shaqeeya ayakana waxaa lagu ogaadaa dhaqdhaqaaqooda maxaa la dhahay aad uma badno ma dhaqdhaqaaq badno wax markay neefsanayaan caloosha iyo feeraha inta u dhaxaysay badanaa ay ka neefsadaan maxaa la dhahay dad like maxay ahayto dhaqdhaqaaqoodana control weyn uu leeyahay like saa uma dhaqdhaqaaq badno badanaa markaa wax u dhigaysa ay rabaan inay wax maqlaan midka kaleeto oo ah ilmaha oo jecel inay maxay ahayto ama ah inay ku bartaan wax taabashada ama qabashada ilmahaas badanaa codkooda waa codkooda aad u hooseeyaa waxay ka neefsadaan caloosha markay neefsanayaan caloosha ka neefsadaan waxay isticmaalaan gacmahooda markay isticmaalayaan caloosha agteeda ay maraysaa markay wax ku tilmaamayaan gacmaha ka hadlayaan oo kale caloosha agteeda gacantooda ay ag dhigaan markaa su-aal weydiisid badanaa aad rabtid inaad jawaab ilmaha ku siiyaan jawaabta badanaa waxay kasoo hormariyaan markaa dhahdid maxaa samaysay maanta oo kale intuu ilmaha ku dhihi lahaa waxaasan sameeyey meeshaasa tagay ka hor jawaabta waxaasay dhahaan badanaa so siyaabo kaloo badanaa jiro oo lagu ogaan karo intaan kaliya ma ahan insha allah intaanaan idiin soo boobsiiyey adinku aad u mahadsan haddii aad sii xiiseynaysiin kuwo kaloo badanna waa idiin soo bandhigi doonaa insha allah marka waa intaas maanta intaa idinla soo jeclaaday oo aan waqti u helay marka waa mahadsantihiin adinkoo mahadsan sidii mar walbaba aan idinka codsan jiray fadlan ha iloobin inaad jacayl saartid dadkana la wadaagtid wixii faahfaahin oo dheeraadna hoos ku qortid waad mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu